daawadayaal waxaa la gaaray xilligii aadna la daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dora TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشينا شرفتا إيا قيمة له ملودا عالم كان داون إنسان كسر دوادا national and international news وهبين كان عاوة وأي تاريخ دو تهي تضبا إلى باتنك بشا ربيع الأول السنة كون إيا أفر بقول إيا أفرتن إيا لحدة هجرية إسلامك لانمد أصدنك بشا سبتمبر إيا لبضكون إيا أفر إلى باتنك daawadayaal wararkeen habeenkan caawa ah waxa aan ku soo qaadan doonaa ururka macallimiinta ee wadankan Ingiriiska oo ogolaaday 5.5 boqolkiiba mishaar kordhin loo sameyn doono shaqaalaha ama macallimiinta dugsiyada kala duwan ee wadankan Ingiriiska. sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa maalinta berita oo ah 1 bisha October ee sanadkan 2024 oo qiimaha energy-ga wadankan Britain kor loo kicin doono. wararkaasi iyo warar kale oo aad u xiiso badan ayaa habeenkan caawa ah aan ku soo qaadan doonaa wararka Britain ee Dora TV. daawadayaal wararka habeenkan caawa waxaa idin soo gudbin doona anigoo Saalim Dhoora sidaad la socotaan daawadayaal. mar waliba waxaan ku bilaabaa khayrka iyo wanaaga. masjidka Raxmaan ayaa haatan gabagaba isla markaasina haatan maanta waxaan loo soo gudbiyay klibkii ugu dambeeyay oo minaaradii oo alwaaxdii laga wada furay. sidaad la socotaan masjidka Raxmaan waxa uu soo maray qaybo aad u kala duwan isla markaasina mar waliba waxaan idin soo gudbinaa isbeddelka masjidka uu markaas u sameeyo. masjidka minaaradan aadka u quruxda badan ayaa waxaad moodaa in dad aad u tiro badan aad uga heleen. waa dadkii khayrka iyo wanaaga ka qayb qaatay oo runtii habeenkan caawa dareemaya markay minaaradii arkaan in shaqadii ay noo igmadeen aan gudanay. laakiin ismida idin sheegay faanole fari kama qodna oo aan ula jeedo khayrka iyo wanaaga ma aha mid joogsada. qofku waxa loo baahan yahay inuu khayrka iyo wanaaga uu mar waliba uu wado. minaaradda ayaan rabaa inaad ila wadaagtaan sida ay markaasi dhalinyarada ku nool magaalada Baraab ee masjidka u dhisaan. Allahu akbar. ila daawada klibkan yar aad ka qurux badan. isniin taariikhda ku beegantahay 3 bisha September sanadka 2024 تدل على تكا بشا ربيع الأول السنة يكون أفر بخل أفرت ليله هجران سامية لكن سالم ولدا نرد قدر ما شاء الله الحمد لله برمينا أنت نود ما نحن في ذي نستحق قدر الحمد لله برمينا حينك سوقتك السؤال قبلنا على اقتداء مهم إن شاء الله تعالى نير ولكن صالح الصلاة نوره مركز سبحان جعلها هذه أنا قولونه ولنت اللي تصيه التفسير إن شاء الله ولد من أرد ما شاء الله نهردي ولا فوري ما شاء الله وأصنع وما شاء الله وما شاء الله الله نفذ باخر ولما وجزاكم الله خيرا ألف ألف خير أنا وياك أبو بكر عمر راح نجعل خير كان نقول إن شاء الله وجد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal waxa ujeedeen waxay ahayd minaaradda masjidka Ar-Raxmaan oo haatan howshiisa gabagabada ay ka socoto Dalfure. waa qayb ka mid ah magaalada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose. masjidku maadaama uu haatan gabagabay ahlu khayrka iyo la caajisan ilaa iyo maalinta aynu ka furayno masjidkani. masjidkan ayaa waxa uu yahay masjid aad u balaaran oo dad badan oo ahlu khayr ay ka qayb qaateen dhismihiisa iyadoona markaasi loo kala harin. masjidkani ayaa runtii haatan cadayskii qaybtii kore ee alwaaxda ahayd gacantii saddexaad maanta la bilaabay. runtii isbeddel aad u muuqda ayaa masjidka ka soo baxay oo aniga iyo dad badan oo ahlu khayr ah
aan runtii aad aan ugu farxnay markii klibka maantana loo soo diray walaalkii Abubakar Cumar Barakaale ayaa runtii klibkan aadka u quruxda badan nala soo wadaagay maanta waan jeclahay inaad ila eegtaan isla taariikhda ku beegan tahay صدق بيش سبتمبر سنة 2024 وهالكيغا سالم سالونه وولد ما شاء الله الشغالة ويسعتها مستمرا الواحد أنا ما شاء الله هو شيء ويسعتها ما شاء الله قيبتان وينه شغالة لك حياة شغالة ويسعتها ما شاء الله وهالكيغا سالم سالونه لقى تيم كاغا لما الرحمن جروب إن شاء الله تعالى قيبتان ولا من ولده قيبتان فيريا ما شاء الله قيبتان كواد واي ما شاء الله ما شاء الله نور على نور يهدي الله نور من يشاء وكاسا ما شاء الله لكن لساني وصالونه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الوحدة خيبتان إلا جيسك وانا مولي ما شاء الله خيبت حلقة عوالا مري الحمد لله رب العالمين خطنا خيبت لواد شغال لك هاي ولا الكيكة سالم أنا قلت لك ولد الوحدة بلي إن شاء الله تعالى بلي شغالة مستمرة ويسعتها إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى حكرا جينا إن شاء الله مساجد كان إن شاء الله تعالى ولديسة وما شاء الله نور على نوره إن شاء الله تعالى ولد ما شاء الله حلقة أولا من الحمد لله بالأمين هو شو يسعتها إن شاء الله الله نوفي بآخر ودمن وجزاكم الله خيرا ألف وألف خير إن شاء الله ويالكي يقصاني بصلاة دولة شغالة مستمرة ما صارت ما شاء الله انت نودي من الله ننفذ اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wuxuu ahaa wariye samafale Abubakar Cumar Barakaale oo noo soo gudbinayay wararka ugu dambeeyay ee Najidka Ar-Rahmaan oo runtii ay aad boqolkiiba 90 ay dhiseen qurba jooga ku nool wadankan Ingiriiska anigoona markaasi kala saareenin magaalooyin kala duwan oo wadankan Ingiriiska ay hooyooyinka haba u badnaadaane ay masjidkan ay dhiseen waxay noqon doontaa wax aan ku faano maadaama aan qurba jooga inta badan dhaliilana laga soo sheego in aan noqonay dad isku dayay in Baytullah ay ka dhisaan dhulkii hooyo inagoo markaas hawsheen aan ka dhignay ethos oo itabsi wax waliba ethos oo itabsi oo ah qof kasto shilinku dhigtay waxa uu ka dhaxarka minaarada aad haatan arkaysan aadka quruxda badneed ee masaajidka haddaad doonayso in aad nala dhamaystirto dhismaha masjidka Ar-Rahmaan fadlan nagala soo xiriir oo 75-380-97725 oo 75-380-97725 أصحابي ونيسو والدكاغا أهلكاغا إيه قفك أجعشها إن أد صدقة الجارية دو سميسو هل بامب إلها كدقين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاو يري جبك تمرتا كجبت بادا أرلك نارتا الله أكبر وجب نار لغما دين حبت تمرة وجبك تمرتا كجبت بادا أرلك نارتا taasi markaas dhigihiina waxa ku soo dhacaya in sadaqadu ay tahay waxa duwan runtii masjidka Ar-Rahmaan waxa ka faa'iideystay kumanaan qofood oo Soomaaliyeed oo qalbigooda ku soo dhacay iclaamkii aan jeedinayna oo ahaa war caruurta agoonta aan u sameeyno meel ay salaad ku ogaan isla markaasina goob ay markaas quraanka ay ku xafdiyaan isla markaasina ay ku bartaan Allahu akbar قيلدانتي وي أجيبين وحاينا لسان مسجد كان آدك أبلارن أو قيبة كلا دونا قيبتي صلاة قيبتي ميت كلا دقي قيبتي أغانتي وحي كبرنايي جكذي أي راشين كلا وكرلها أغانتا لابا أوفيس كي مساجد كلا مامون لها إيو برحد بلارن أن أغتلقلني إنت لغو أبورا دير أي دادكو أي كونستان aragtidaas quruxda badan waxa ay ka timid dad ku nool wadankan Ingiriiska oo aragtidooda isku darsaday waxaan halkan aan mahad gaar ugu celinayaa
runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh noo fududeeyey laakiinse dad waxaa jira shakhsiyaad si gaar ah ii garab istaagay markii aan bilaabo dhismaha masjidkan arraxmaan. masjidka arraxmaan weyga aan waxu aruurinayna ma ahan wey aan ku aragno social network 500 dhiib dee xaaladu way adagta qof 500 baan hal mar awood aad ba adagta laakiinse waxaan ku dhisnay 1 baan 2 baan 3 baan 5 baan waxaad markaas awoodo waa qadar daaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisu wuxuu ugu jecel yahay kuwa wax sadaqaysta haba yaraadaane. laakiin habeenkan caawa haddaan ku iraahdo xaawo roobla 1,000 baan ii soo shub ama $1,000 dalkay ka keenaysa maba haysateen. marka aragtida quruxda badan oo isku darsan waxay ahayd in 1 baan masjid lagu dhisi karo. wadankan 1 pound dukaamo la yiraahdo ayaa jira markaad gasho pound tilka markaad tagto 10 baan ay dhiibaysaa waayo 10 shay waad u baahneed gurigaaga aamin 1 baan ka soo bixisa. waa tusaale anagana hal baan intaan isku darnay ayaan waxaan ka dhisnay masjid aad u weyn minaaradiisa qolkii agoonta qolkii meydka lagu dhaqi lahaa jikadii wax loogu karin lahaa intaasoo idil pam ayaan isku darnay. qofkii soo kordhiyana ilaaha barakeeyo. sheekada baanay ka bilaabatay ilaa ay 1,000 baanay gaartay waayo qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala nimceeyey waxbuu sadaqaysanaya. qofkii dhaqaalihiisa liita anigoo kale iska ahna dee baankaygaan ku darsanaya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddaad hal shay aad dhiibto 10 aan kugu bedelaya. marka baankayga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu 10 iigu bedelo. qofkii 1,000 dhiibtana ilaahay waa uu jabaaray waaba ka badan yahay waad la socota anigoo 1 baan dhiib haddiiba 10 la isii dee adiga halkaasi nimcaaba kuu taal. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda wuxuu ugu jecel yahay wax uun sadaqayso. marka fursadda aan helno waxaa weeye dad badan oo laga yaabo inay hooye aabe ay jeclaayeen in gacan ay hubaan ay markaasi sadaqa tijaari ay u sameeyaan way u sameeyeen. awlaada saalixa la sheego waa inta agoonta mid baan idinkugu darsanay aan rabo inaan kusoo gabagabay suuradda ara'ayta alladii si fiican fisirkeeda u dhagaysta haddaad fahantaan ayadaas qur-aanka agoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaam aad u weyn ayuu gaarsiiyey qofka agoonta u naxariis badan. maalin waliba oo khamiis ah raashinaan siinaa maalin walbo jimco ahna macmacaanka ayaan siinaa waa kala saarnay waayo caruurta macmacaanay u baahan yihiin. caruurta energy ma haystaan. caruurta waalidku awood uma laha inay dhalo faanta u iibiyaan qaarkood. sidaas darteeda maalinta jumcada waxaan uga dhignay maalintii macmacaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in jannatul firdaws al-a'la macmacaan nagu siiyo. macmacaanka jannadana qof kasta garanay aad buu kaga macyahay kan caadiga ah inta ku sameeyo kan anaga sameeyeen wax baa isku walaaqnay laakiin satan uu rabbi uu sameeyo waa ay ka duwan tahay la socdo. hooygu ilaahay ku dhiso subxaanahu wa tacaala ma ah hooyiga aan anaga halkan ku aragno. sheekh maalin noo sheekeynay ayaa waxa uu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada qofku ilaahay geliyo oo guri qof kasta qasriga la siiyo waxa weeye qofka iyo khayrka iyo wanaagu adduunka kaga tagay qasr ah baa la siinaya. hamoodin jannada marka la tago kulli inaa isku wada gurina 2 bedroom flat iyo 3 bedroom flat iyo ma sheekada waa hooyo ilaahay dhisay una garanayo cadadkiisa. haddaad dhegaysataan qisooyinka jannada mar walba waxaa idin dhaha janalka daawada sacuudiga ee sunna la yiraahdo xadiisyada nabiga ka sheeg runtii aad loogu fasiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada markuu ka sheekeynayo oo ummadda u sheegayo wallahi alcadiim been idima sheegayo wallahi alcadiim qof anaga naga mid ah adduunka dushiisa dambi ma uusan geli lahayn. waxa uu isku diyaarin lahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala hooygaas uu qur-aanku uu ku sheegay inuu isku sii diyaariyo. maba aad isku daala adduunkan intaad camal wanaagsan samaysato ayaad ka tegi lahayd.
waxa noo diyaarsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka nasiib leh uu u diyaariyey waa jannatul runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ogyahay. marka sheekhu wuxuu yiri aan kusoo laabtay waxa uu yiri jannada guriga ugu yar oo la yiraahdo gurigana ugu yar waa qasriga ugu yar ugu ku yaala adduunka boqortooyinka waaragtay boqortooyinka adduun dhana u xiran boqortooyada adduunka ugu weyn ugu qasriyada tirada badan kaas waa midka ugu yarba oo dhibicda ah lagu leeyahay jannada guri baa laga siiyay. what do you think marka ilaahay hadduu hooyiga qaarkood ama janooyinka qaarkood oo la leeyahay halka laga soo galay halka laga baxo intaasoo 100 oo sano lagu dhex soconaya oo adigu aad leedahay ka waran marka sadaqadu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka waxa uu ku gaarsiiyaa maqaam weyn. qofka xanuunsanaya markuu sadaqa dhiibto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu u daaweynaya caafimaad baad ka qaadaysaa waayo waxaad kurbada ka qaaday qof kurba haysa. sadaqada ta ugu quruxda badan waa marka sadaqada waxa ugu qurux badan tan aan laga sugaynin. hadda waa aragtay baysi wax la yiraahdo la bilaabay dahab waxay bilaabay system mobilada lacag la iskugu diro waad iska joogtaa gurigaad fadhisaa 10 baan akoon kuugu jirto laba baan waa la isku tuuraa Soomaali sida la sheegay aan wiil ma tagmeel wax la isku tuuraa haddaad hal baan u tuurto dadka masaakiinta baysi aad ugu tuurto wallahi alcadi maalintaas qado soo iibsanaya dadku isku mid maaha. dadka anaga aan ka dhalanay oo Afrika noo jooga 200-300 oo dollar ma anfacaan waayo waxay og yihiin qofkan in bil waliba 300 oo dollar u soo diray waa ku falaadaya. laakiin waxaad la socotaan oo aan runtii aan proof idin kugu hayo dadka qaarkood oo lacagta sadaqada aan gaarsiino marka $1 loo diro maalintaasi qado caruurta ay ku farxaan ayaa loo soo iibinaya. anaga teena 300 maba ka socota Soomaaliya marka 15 maalmood 16 maalmood la maray waa lagu soo waxa lagu leeyahay 300 way dhawaatay. marka caruurta agoonta fadlan isha lagu haay ma aha kaliya in aan lacag soo dirtaa maya caruurta agoonta meel kasta oo aad adiga degneed ay ku nool yihiin. walaalaha wacaysa waxaad leedahay walaalkay $10 igu sadaqay dadka masaakiinta qof ha ugu dooro mobilkooda $1 isbedel noloshaada ayaa dareemaysaa marka aad aragto sadaqada markaad dhiibato isbedel baa gurigaada ku arkaysaa naftaada ku arkaysaa isbedel muuqda ayaa runtii noloshaada ku bilaabmay. teeda kale caruurtiina bara sida wax loo sadaqaysto. eeshiyaanku waa aragteen salaada jimcada markaad tagtaan ilmaha yar ay gacanta ka wada hal baana loo soo dhiibaa halkaasay ku ridaan waxa ay barayaan in wax la sadaqaysto. laakiin caruurteena ma la baro waalidka waayo caruurtooda ma wataan caruurtooda. haddii wiilka aadan wadin oo salaada jimcada marka la gaaro ama salaadaha kale aadan dhin aabo halkan baan ku rid boxkaas sadaqada masaajidka maba garanayo. marka fadlan ubadka hala baro sida wax loo sadaqaysto ma aha oo adiga oo kaliya in aad tiraahdo ana wax sadaqaystay. dad badan ayaa waxaan ku iraahdaa war daawada Islamic Journal-ka wadankan Ingiriiska shahru Ramadaan ilma yar ayaa telefoonka soo qabansanay waxay leeyihiin magaca Anis ayaa la yiraahdaa maxaad sadaqaysanaysaa wuxuu ku leeyahay pocket money-gayga ayaan 10 baan ka sadaqaysanaya. look yarkaas yar maskaxdiisa herkay gaarto waxaan xasuustaa hooyo Soomaaliyeed ilaaha xafide ayaa maalin waxay ii soo dirtay 10 pound waxay tiri wiilkayga Maxamed ayaa soo sadaqaystay wuxuuna uu furay box yar oo kumiyada uu ku rito waayo anaga waa caruurteen inta badan pocket fiican ma siino. waxay tiri 10 pound ayuu furay uu ka dhaxelay wuxuu yiri abtigay haloo dhiibo agoonta haloo shubo wiilkaas ilaah baa barakeeyay waayo maskaxdiisu waxay gaartay in caruur agoon ah uu sadaqo siiyo. asxaabay ilaah subxaanahu wa tacaala hana xafido yaa rab. ilaah subxaanahu wa tacaala culeysyo badan ay jira iyo korbo badan inuu ilaahay kor badan naga qaado. daawadayaal habeenkan caawa habeenka ugu dambaysa ee bisha September ee sanadkani 2024 maalinta birita ah waa 1
bisha October ee sanadkan 2024 energy-ga waddankan Ingiriiska gaaska iyo korontada qiimahooda maalinta Brito ama habeenkan caawa 12 habeenimo wixii ka dambeeyay qiimaha energy-ga uu kacay maanta dad badan ayaa ka faa'iideysta oferada ugu dambeeyay haatan waa 9:00 waqtiga magaalada London waddankan Ingiriiska ilaa ay qofku wuxuu haystaa 2 saac iyo bar online ku qofku ku apply gareyn kara ama si toos u wici kara wili way shaqeynay waayo waxa dadka looga faa'iideynaya fursadda offerka ugu dambeeya ee gaaska iyo korontada offerkan muxuu yahay offerkan waxa weeye in uu qofka agreement shirkadda la galo fixed price wax la yiraahdo in bisha example 35 baan ama 50 baan aad dhiibayso xitaa haddii maalinta Brito ay dawladda lacagtaasi kordhiso adiga barayska haatan ayaa 2 sano ku saxiixan shaqadaada ma bedeli kara shirkadaasi marka dadkeena problemkan haysto waxa weeye shirkadaha marka aan contract kala galeeno xitaa haddii aad contract kala gishid oo fix uu yahay uu lishigreysan yahay oo wax uu kordhiyo ma ogidbo dawladda wala ku yaqaan qofku waxa la rabaa biilashiisa inuu control wasaas waddanka Ingiriiska waa san upside down way waxaad maanta ogid bir ma ogid wax walba saana u kacaan dhankaan ay u baxaan dhankaan ay u soo degaan halkaan ay ka baxaan way ku soo noqdaan waxa way waa adduunyo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala ogi okay agreement-gaana gala qofkii aan ku jirin 2 saac iyo bar ayaad haysataa inta la gaaro 12 habeenimo contract-kan am fixed price-kan gala aan horaan u galay alxamdulillah biilkay ugu dambeeyay oo maalintii shalay ii soo dhacay 30 pound ayuu noqday 30 pound iyo 28 pence soo noqday waa korontada aan isticmaalayay muddada 3 maalmood minus hal bam ay aday isticmaalay so qiimo jaban Soomaa the house kan degana 5 bedroom way carruur badana qabaysatay ilaaha barakeeye ma sha Allah weysadu way iska badantaa de qoysku badan yahay haddii 31 baan lagu soo dirbishi waa awooda marka fadlan fursadaha aan saan idinkaga soo dabaqaylinay aniga faa'iido ugu jiro shirkadda shilin ma siiso waxaan dhahaa qofkan walaalka daa ka faa'iideysto maalintan dukaanka matalaan tago shaati raqiis soo arkay ilaa intay waxaan warayay war dukaanka matalaan sel baa ka jira dhalinyaro ka soo faa'iideysta hadda aan idin sheegay soo jiraamo shalay soo arkay sidoo kale dukaanka next la yiraahdo wuxuu iibinayaa dharkii samarka laga baxayo shaatiyaasha u badan oo runta qiimahooda aad idin cajabay shaatiyaasha la gadayo 50 baan 23 baan 18 baan war waa fursad ay ka faa'iideysta ragow tag dukaankaasi jaakadaha early summer kala isticmaalo ama late summer kala isticmaalo yaran qabowga jiro iyagana sal ku jira dharka haweenka oo jaakadaha u badan sal ay ku jiraan marka salalkan isdaba jooga dukaanka next anaaba ka soo gatay matalan sal ay ku jira ka faa'iideysta place waa fursad aad u wanaagsan waxa la yiri de qofka saqiga waxa lagu gartaa waxa uu sheega halka salka oo ka jiro marka hadda dukaankaas matalan la yiraahdo dharka sareeraha la saartay iyo boorsooyinka holiday-ga iyo waxa la dharka caruurta iskuulada ay ku dhigtaan iyo samarkii haatan gabagaba shaatiyaasha iyo waxa soo dhan waa wada sal oo raqiis ka soo dhigay ka faa'iideysta sidoo kale dukaanka nakista shaatiyaasha fanaanadaha runtii aad loo soo raqiisiyay 25 aha ilaa iyo 7 baan 8 baan 12 baan sida ay markaas quality marka difaaca laga wada faa'iideysto sidoo kale daawadayaal idinkan isoo sheegay markaad sahashan ku dhiganaanina geed bismillah asxaabi National Education Union oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano NEU ayaa maanta waxay ogolaadeen offerkii ay dawladda ay markaas u bixisay in lacagaha loo kordhiyo macallimiinta ku nool waddankan Ingiriiska 5.5%. macallimiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad kaga biidiidana go'aamo badan oo ay dawladda waddankan Ingiriiska ay soo gudbiyeen ugu yaraan 500,000 oo macallin ayaa waddankan Ingiriiska ka shaqo gala waa dugsiyada hoose dhexe kuwa dhexe iyo kuwa jaamacadaha
ururkan waxa ay sheegeen maanta inay ogolaadeen ofarkii ugu dambeeyay oo ay dowladda waddankan ingiriiska ay macallimiinta u sameeyeen waa 5.5 boqolkiiba oo runtii lacag badan ah ra-iisul wasaaraha waddankan ingiriiska oo maanta ka hadlaya ofarkan ay macallimiinta ama ururka macallimiinta ee waddankan ingiriiska ay ogolaadeen NEU ama National Education Union ay runtii dowladdu lacagta ay dhiibayso ay kor gaarayso ilaa iyo 10 bilyan oo poundka lacagta waddankan ingiriiska su-aasha waxa ay tahay lacagtan aadka u tirada badan dowladda halkay ka keenaysa sideedaba dad badan ayaa waxay u haystaan markay dowlad ay maqlaan dowladda inay lacagta un iska haysato dowladii lacag ma haysato waxaa jira Bank of England oo lacagaha waddankan ingiriiska ka mas'uula Bank of England markaa deeman badan ayaa waxa uu siiya dowladda dhexe uu deemiya dowladda uma shaqeysa sida ay dowladaheena u shaqeeyaan dowladaheena waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo ceer waa tabarucada wadamada Yurub iyo UN iyo waxyaabaha laga soo toogsado ayaa wadamadeena ay ku shaqeeyaan oo ayagoo dhan waxa weeye MGO ee adduunyada la sheegayo ay asxaabay ay ku shaqeeyaan waa dowladaheena waa wadamo toogsiba ku nool laakiin waddankan ingiriiska aan ku noolnahay maadaama uu yahay wadamada ugu dhaqaalaha badan ee caalamka lacagta ay marka ay waddan kale lacag ay siinayaan waxa ay ka qaataan Bank of England lacag cadidan oo Bank of England ay og yihiin in ay dowladda ay u soo celin doonto okay dowladda sidee ku soo celinayaan war dowladda waa in dowladii sidee bangiga England lacag kaga qaataan waxa weeye dowladda lacagaha waxa ay ka soo gashaa consul taxka anshuuraha maxaa lahay gawaarida jidadka la dhigo canshuuraha kala duwan lacagtaas oo idil waxay ka soo xarootaa bulshada waddankan ingiriiska lacagtaas waxay dhigtaan akoonada dowladda ee sida gaarka u leedahay oo si gaar ah iyagana loo control lacagtaas tirada badan oo markaas dowladda ay soo galayso ma aha lacag ay si hal meel ay ku haystaan dowladda markaa waxa ay baaro ay samaysanaysaa lacag ay ka qaadanaysaa bangiga dhexe ee waddanka waxa ay leeyihiin lacagta intaan waxaan ku gudi doonaa intaas oo sano taas ayaa keentay in uu maanta ra'iisul wasaaraha waddankan Britain uu yiraahdo u kordhinta aan lacagaha aan u kordhinay macallimiinta waddankan ingiriiska ee ugu yara 500,000 ama 500,000 ah waxa ay gaaraysaa ilaa 10 bilyan 10 bilyan waxa la doonayaa in laga qaado Bank of England laakiinse dowladdu in ay sida ku soo xareyn karto ay soo xareyso waxa kamid canshuuraha inay kordhiso 4 bisha 3 habeen kadib insha Allah waxa lagu dhawaaqi doonaa maxaa lahay lacagaha miisaaniyada waddankan ingiriiska ee xilliga qaboobaha haatan ayaa lagu dhawaaqay ilaa bisha Abriil marka arrimahaas oo idil ayaa dowladda markaas culayska haysta ay kamid tahay sidaas darteeda maanta macallimiintu ay faraxsan yihiin 5.5 boqolkiiba ayay ogolaadeen laakiin hal college ayaa ka soo horjeestay arrintan oo ah Royal College of Nurses oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano RCN Union of maxaa la dhahayay nurses waxay dhaheen 5.5 waa ay ugu yartahay taasi iyadana xalin gooni ay u baahan tahay waa qayb runtii muhiim ah ama xubin muhiim ah oo loo baahan yahay inay dowladda ay kiiskan ay xaliso daawadayaal habeenkan caawa ah wararka waddankan Britain halkaas ayaan ku soo afjaraya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa awlaadda Soomaaliyeed meel kasta ay caalamka ay ku nool yihiin inuu noo xafido ilaahay subxaanahu wa ta'ala caruurta Soomaaliyeed waxaan kaga baryaynaa inuu cadowga ka ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ubadka Soomaaliyeed waxaan kaga baryaynaa in bullyingka lagu hayo iskuulada from ciyaalka dhexdooda ilaa ay macallimiinta iyo managementiga inuu ilaahay ka badbaadiyo ubadka Soomaaliyeed waa halka aan inta badan caruurteena ay ka qalbi jabaan caruurteena waa looma ooyaan oo waa ay u adkaystaan xanuunka bullyingka uu ku leeyahay runtii markaan leeyahay caruurta loo duceeyo wax kale maaha caruurteena wax aan ka ognahay malaha war hooyo bax iskuulka aad war hooyo soo noqo war hooyo bris cun war hooyo baasta cun wallahi billahi tallahi ka daran ayaa caruurtaas aad subaxii guriga aad ka dirayso iskuuladan ku haysta caruurteena waa ay niyad jaban yihiin caruurteena waa ay ooyaan caruurteena marka iyaga wax yar ay sameeyaan waxa weeye
waa lagu soo wacaya waxaa lagu leeyahay warniyo saalim dhowr wiilkaaga rabsho buu galay keena marka lagu rabsho lagu sameeyana qofna soo waca ma laha waayo waa cunug yaroo looma ooyaana looma doodaan oo loo yar ma qabtid oo community ma qabtid oo nin kuu doodayo ma qabtid oo ehel kuu doodayo ma qabtid meel aan wax ka bilaawno ma laha 37 sano ayaa waddankan ku nool lahay ilaa haatan tiya taagan oo caruurteena dhib haysta hooyo Soomaaliyeed la sheekaysto marka qaarkood waxay tiraahdaa Saalim oo caruurta way daaliyeen waa eray caruurta aan ka hay hooyada ilaaha xafida waxay dhahdaa caruurtan from nurse ilaa ay haatan oo laga yaabo inay jaamacada gaaraan ayay subax kasta kacayaan kicitaanka caruurta waxaan ka dhibaysa waa rag waa gabar waa ay korayaan laakiin caruurtan waxay ku dhex nool yihiin xaalad adag macallimad ku qaylinaysa head teacher ku qaylinaya waxa weeye school managementiga ku qaylinayaan caruurteena wallahi dhib ku haysta wallahi ma oydin war caruurta la sheekaysta war caruurtan ooynaysa caruurtan oo detentionka lagu dilay caruurtan maalin kasta iskooladeena laga soo ceerinayo waalidow maxaad ka ogtiin idinka isku maqan caruurteena halkaan ku baaba'een maxaa keen iskoolada inay nacaan maxaa keen inay waxbarashada ay nacaan asxaabe caruurta dhib baa ku haysta iskoolada waalidka kale ka qarsanaya dhibka caruurta korkooda ma eegtaan ciyaal kala dilaya wax baa dilaya wax baa ku qeylay aniga dilka halka shay igaga daran qeylada wallahi dhigaha laga galaa maalmaha kamid ah it's not 2023 or 22 aakhirkeedina ahaydaan jeclaan iskuulada kamid ah ma rabo inaan magaca sheego ayaan tagay anigoo rabo gabar yaroo aniga aan dhalay inaan soo wato oo dentista geey qababna waa uu jiray iskuulka albaabkiisa meel aan sidaas kaga fogan isla iskuulka gudihiisa xeyndaabka ayaa waxaa arkay managementiga nin ka mid ah oo hooyo Soomaaliyeed ku qaylinaya waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyaro oo isla taagan oo nin managementiga aan hebel aan dhahi karo ku qaylinaya waan wax yaraan lugta u gaabiyey xaq wuxuu leeyahay in cunugaasi hadduu qaldamo sida sharcigu dhigayo uu ku tiigsado laakiin hooyo aan luqad ka saynin ayuu intuu dibadda ku helay uu ku karbaashaya waayo gudaha iskuulka macallimiin kale oo dhigi lahayaa jiro excuse me ana isku question waa maxay dhibaatada haysa waayo dhiig naxa ayaa ugu yaala waxaan dhahay waa maxay macallimada what's the problem gabadha Soomaaliyeed isaga ma eegin ana isaga waa kasa aqoon fiican aan u leeyahay gabadhiyaan dhahay waa maxay macallinka waxay tiri wiilkayga qalad uu galay dartiisu ninkan u qeylnay excuse me ana problem issue ma jiro wiilkeeda saawar ka keenay wiilka no problem laakiin saxa hooyada ku qeylnaysan way hooyada ugu qeylnay waa maxay sharciga dhiga in waalidka lagu qeylay marka dib uu noqday iskuulka wiilkeena wata hooyadaasi ilaaha xafiday kullay nagama fog eeriyada aan deganay wax kale kuma dheen haddii saas ay noqoto iskuulka managementkooda waxaa ku dhahdaa qof af Soomaali ku hadlay u baahan waxa lagu raad waa lagu soo wacaya kadib kiiskaas sidaas u galaysa laakiin in caruurtana laga bulon garay adigana lagu boogay aad ka baqaysaa teacherta aad ka baqaysaa oo macallimiinta kada waxyaabaha qaarkood anaga aan ku dhaqano waa qalad inaan iskuulka tagno idinka racist aatiin racistnimada ka tag da cunugaaga u nah marka waxaan caruurta ugu duceynaa wax kale maaha dhibaatooyin ayaa waalidiinta caruurta Soomaaliyeed ee UK ku haysta caruurtan wax iskuulada kaga cararayaan waxbarashadooda liitaan waa ilmo qalbi dilan oo markaas dhibaato lagu hayo ilaahu badka Soomaaliya xafido ilaahu waalidka Soomaaliya u naxariis ilaahu hooyinka Soomaaliya u naxariis ilaahu subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa dadka ahlu khayrka ee ka qayb qaata dhismaha masjidka Ar-Rahmaan oo aad u tarbad hal qof aan dhihi karin
إنه إلهي سبحانه وتعالى صدقة الجارية دبتين إنه إلهي سبحانه وتعالى وأخبره أنت قفض لنا عولي بكري قيب قائد المساجد كاسلاح حفظه داود يال وركين هبي كان عاو حيدي كغسو قد بنيه استوديو هنا وين وكيا لبريو مقالة لندن ودن كان بجريد بريتا أنا قصار مدورة أي ورك هبي كان عاو إدي سو قد بنا وركاني ورك له حيس بدن أنت أكو كل مدونه وحنسكو لافنا داود يال وهو بلا طفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. golden spice dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo magaalooyinka kale ee wadankan Ingiriiska waxaan idinku bishaareynaa in golden spice waa xawaajiyada raashinka lagu darsaday dib u habeyn lagu sameeyay ma aha xawaaj qalalan oo aad marka aad gacanta ku taabato aad dareemayso in uu qalalan yahay ma aha xawaaj marka aad gacanta aad kala baxdo aanan ku soo udgeynin waa xawaaj aad u udugiisa aad ka dareemi karto halka aad markaasi joogto gacantaada iska bada golden spice waxa uu sameeyay dib u habeyn oo markaas uu ku kordhiyay xawaajiye cusub oo markaasi aad ka heli doontaan haddaad doonayso xawaajiyadaani kala duwan ee lagu darsado raashinka ay Soomaalidu ay aadka u jecel yihiin sida bariiska baastada hilibka kalluunka iyo raashinka kale ee maraqa uu ka mid yahay golden spice waxa ay diyaar ku leeyihiin in ay markaas ay kugu keenaan halka aad markaas ku nooshahay golden spice haddaad u baahan tahay fadlan kala xiriir telefoonka iyo ciwaanka haatan shaashada kaaga muuqda golden spice iyo Abdalla Dheere Golden Spice Abdalla Dheere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ددوينها الصوماليات ايكونول مقالة لندن وحنوغو بشارينينا ان ليم سكيل اكاديمي اي هاتن مركل اي ايدين بلابين كورسوينكي كيركا ee markaasi dad badan ay sanadkii aynu soo dhaafnay aad ay kaga faa'iideysteen lim skill academy haatan waxa uu idin hayaa koorsooyin badan oo markaasi aad ka faa'iideysan kartaan ay keerka ugu horeeyo sidoo kale english isl nooca loo yaqaan ama isl englishka oo lagu faa'iideynayo dadka luqadooda aysan ahayn luqadda koobaad ee englishka sidoo kale math functional skill level 2 english functional skill level 2 iyadana sidoo kale waxa ay ka caawinayaan haddii aad doonayso in aad ku biirto jaamacadaha wadankan Britain Walter Mugisha ayaa markaasi arintan idinka caawin doona fursadan waa fursadii labaad aan u soo gudbino bulshada ku nool magaalada London ee wadankan Ingiriiska haday doonayaan in ay waxbarashadooda u gudubto waxbarashada sare ilaa iyo university ama mid aad doonayso in aad ku shaqaysato aadna kaga badbaado shaqooyinka sida qasabka ay kuugu dirayaan job centerada fadlan haddii aad u baahan tahay macluumaad intaanay ka badan kuna saabsan lim skill academy fadlan nagala soo xiriir telefoonka iyo cinwaanka haatan shaashada kaaga muuqda waa lim skill academy oo ku taala bariga magaalada London xaafadda Leytonstone lim skill academy iyo Salim Dhoore